kadib waxaa dhacday Layla waxaa guursaday nin la yiraahdo Wardi kadib markii aabaheed ku qasbay inay guursato ninka. taasi waxay geeri ku noqotay Qays oo markii uu maqlayba saxarihii iyo buurihii ay la wareegteen xaaladiisa caafimaadna ay noqotay mid ay ka daaleen dhaqaatiirta. Qays aabihii ayaa maalin ugu yimid asiga oo god ku jira oo ku dhex hurda, waxa uuna ka dalbaday in uu u raaco guriga iyo meeshii walaalihii joogeen. Qays markii uu dib ugu laabtay gurigii aad ayaa loo canaantay, isagoo qof kasta ku dhahaya maxaad naftaada ugu halaagaysaa, gabar kale miyaa dunida ka weeday, isagoo gabadhii Carabta ugu quruxda badnaa loo soo bandhigayay. laakiin arrinka wuu ka indhasaartay Qays oo waa halkay isaga ekihiin isaga iyo cilmi boodhari. Qays waxa uu go'aansaday in uu dib ugu laabto riyada. Qays weli ma uusan quusan weli, maxaa yeelay Layla weli dunida waa ay joogtaa, dayaxa way la daabataa, xidigahana way la tirisaa. sidaas ayadoo tahay Qays dhibaatada way ku ziyaaday. afarta jiho dabeelo ayaa ugu yimaado. waxa uu yiri isaga oo ka cabanaya Layla sida looga fogeeyay ayuu yiri, dadka oo idil baa ii kaa asturo, ma adduunka oo dhan baa ii kaa hiilinaya, indhihii sixira aragooda jecela, ma arkay Layla ifka may joogaan, ma ilaabi karee. labadaas ruux aad bay ugu adkayd in ay kulmaan, kaliya waxaa wararka u kala qaadi jiray safarada u kala gooshaya Shaam iyo jasiiradda Carab. maalinba maalinta ka dambaysa Qays waxa uu ka sii baxayay saaxada nolosha, waxaana hareereeyay walwal, walaac iyo walbahaar. Laylana ma moogan saaxiibkeeda dhibaatada haysta. habeenada ka mid ah ayaa jaariyadeedii loogu yeeri jiray Marjaan ayay waraaq ugu soo dhiibtay, taas oo kala raadinaysa dooxooyinka, webiyada iyo meelaha lama degaanka. allahayo muxuu waqtiga isbedelay. shalay Qays iyo Layla waxay ku ciyaari jireen banaanada iyo guryahooda xilliga ay carruurta ahaayeen. maantana waxaa u dhaxeeya webiyadii murugada oo mid walba dacarkiisa ayuu ka cabayaa. hadday isku dayaan inay isku soo gudbaan, waxaa qaadaya mawjadaha bilaa naxariista ah. waynaad raadinaysaa, ma aysan helin. Qays waxa uu saarnaa buur dusheeda, wax uu bannaanka kore ka arkay humaad, wax uuna u qaatay Layla oo doonaysa. hase yeeshee way u soo dhawaatay Marjaan. markuu arkay aad ayuu u farxay jaariyadii Marjaan. markaas ayuu ku yiri aaway xagay martay, xaaladeedu sidee ay ahayd. markaas ay waraaqadii u dhiibtay. Layla waxay ka baqaysaa in aad u dhibaatoodo jaceylkeeda. waxaa kale oo ay ku soo tiri hablaha dunida jooga maxaan kaaga duwanahay oo aad sidii iigu jeclaatay. waraaqada Layla waxa ay uga calaacalaysaa Qays iyada oo leh adiga ayaa xaq u leh inaad ila wadaagto nolosha. waxa aniga i guursaday nin aan naxariis lahayn, waxaan nahay laba isnacab oo caw ku wada caweeya. markaas ayuu Qays xanaaqay oo sidatan yiri adduunyada carruurde casrigii ka joogtee, ciirada ku xeeratee, laysugu carruurde, lamaanaha isxaashaqay, cil looga aarsaday, cirkub dhawaanaan, duruuraha macuriyo, badda caari mooye, caan kala baloowa, dayaxii caddaan waa, xidigii cadceedsaday, caawana habeenkii, cildama igu soo gallay, Laylana macawbe, wardi kula cabaysaa. Qays waxa ay ku guureen dhulkii murugada badnaa, isagoo loo doonayo in uu sidaan dhaamo, oo waxay aadeen magaalada sharafta badan Makka al-Mukarrama, isagoo oo Kacbada loogu soo duceynayo. sidaas ay tahay Qays kama uusan bogsan dareenkii Layla ee xanuunka badnaa. maalin ayaa waxaa soo dulmaray shimbiro oo u jihaysan dhulkii Layla. markaasi ayuu asiga uslan u faraya sida tan yiri shimbiriyo hoosareeya duulaya samadii, suudimaha dulmarayo siduu doono yeele, hadba meel ziyaarta daalin sideedii, tii aan sugayay qalbigayga siiyayo, salaan Layla iga gaarsii. Layla maxaa u dambeeyay? la soco qaybta saddexaad ee qisada Qays iyo Layla. fadlan haddii aad ka shaqaysan, fadlan like inoo saar, fikirkaas hoos noogu reeb.
si ay kuu soo gaarto qaybta saddexaad ee qisada. fadlan subscribe ha iloobin. mahadsanidin dhammaantiin.